السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو درس ثالث من دروس النحو. hore waxaynu soo baranay in xarfuhu markaa isku tagaan ay sameeyaan kelimado. kelimadahaasi oo aynu u qaybinay saddex nooc: ismun, ficlun, xarfun. haddaba kelimadahaasi ayaa marka ay isku tagaan isla falgalaan waxa ay sameeyaan macaani. الكلام ومن كلمات تتركب الجمل المفيدة وهي المسمات بالكلام. marka ay isku tagaan kelmaduhu ee isla falgalaan waxay sameeyaan jumlad mufiida ah oo ama jumlad sameynaysa macno hadal la isku fahmi karo ah, waxaana lagu magacaabaa bilkalaami hadal. jumladahaasi imise ayay u qaybsamaan? jumladaha waxaa loo qaybiyaa labo: jumlatun ficliyatun wa jumlatun ismiyatun. jumlatu ficliyatun jumlad ficiliya ama jumlad ku bilaabanta ficil. goorma la odhanaya jumladu waa jumla ficiliya in kaana haddii sadruhaa ficlan uu xaggeega hore qalkeega hore u yahay ficil ama ficil ay ku bilaabantay naxw xadara almucallimu. xadara almucallimu macallinkii ayaa yimid. wax kalo labada qaybood ayaa loo qaybiyaa jumladda: jumla ficliya iyo jumla ismiya. jumlatun ficliyatun in kaana sadruhaa waxaa la odhanayaa jumla ficliya in kaana sadruhaa haddii uu qaarkeyga hore yahay ficlan ficil naxw xadara almucallimu macallinkii ayaa yimid. jumlatun ismiyatun in kaan sadruhaa haddii uu qaarkeyga hore yahay isman magac naxw al-ustaadu waaqifun macallinku wuu taagan yahay. calaamadii isamka ayay nooga muuqata oo ah al. labadaa qaybood ayay jumladu u qaybsantaa: almabniyu walmucrab. waa maxay mabnigu? waa maxayse mucrabku? waxaynu ku jirnaa hadda waxaynu taaganahay waa catabadihii laga geliyay icraabka. watanqasimu lkalimaatu kelimadaha waxaa loo qaybiyaa cinda tarakubi ilaa qismayni. kelimadaha marka loo eegay icraab walbinaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaa: qismin qayb laa yataqayaru aakhiruhu qayb aanu isbedelaynin qaarkeegada abada weligeedna. wayusamaa waxaa lagu magacaabaa mabniyan kuwa mabniya. wa qismin iyo qayb yataqayaru aakhiruhu uu xaggeega dambe isbedbedelayo. wayusamaa waxaa lagu magacaabaa mucrab. waxaynu soo baranay in kelmaduhu
أي قيب سمان سدح اسم فعل حرف. فهذه ليست كلها قواسي كلها عند ترقب السواء بل منها qaabka isugu falgalayaan isugu tegayaan isku wada mid maaha bal minha laakiin waxaa ka mid a maa yakuunu aakhiruhu calaa xaalatin waaxidatin qaar xaggooga dambe ay xaalad keliyaata un laasinto fi ayi tarakibin kaan meel kasti oo ay galaan si kastoo ay isku falgalaan kelmadaha ay ula falgalaan qaarkeega dambe isma bedelayaan wayusamaa waxaana lagu magacaabaa mabniyan mabni mabine kuwa mabni ah waa tusaale ahaan guri aad dhistay oo kale dhinac baad u jeedistay dhankaasi inuu subaxda ka jeesto uu dhinac kale u jeesto ma dhacasa maya wax dhacaya maaha sidaa darteed mabniyan waa kuwa mabni ah mithlu tusaale waxa uu ah kalimati kelmadda ayna meel kasta oo ay ka gasho hadalka isma bedelayso waxaa la eegayaa waa xarafka u dambeeya ee nuunka xarafka xarakada dul saaran ee fadxada ah ama kordhiga ah marnaba isma bedelayso saan bay ahaanaysaa wa fii qawlika waxaad odhan ayna alkitaabu aaway kitaabkii wa fii qawlika sidoo kale waxaad odhan ayna dahaba caliyun cali xaggee ayuu aaday ayna dahaba caliyun cali xaggee ayuu aaday wa fii qawlika waxaad odhan wa min ayna ji'ta xaggee ayaad ka timiday wa min ayna ji'ta xaggee ayaad ka timiday fa ina annuuna fiihaa mulaasimatu lilfatxati nuunku wuxuu laasimay nuunka u dambeeya ee aynu qadka marinay cas ama gudoodan hal xarako keliya tahay hal xaalo ayuu laasimay lilfatxa oo fatxaa kordhig ah lilfatxati walaa yasixu an tufaariqahaa mahmaa taqayarat attaraakibu meel kasti oo uu galo sidaa buu laasimayaa xarakadaasi wa minhaa sidoo kale waxaa ka mid a maa yakuunu aakhiruhu mid aakhirkiisu calaa axwaalin mukhtalifatin xaalado kala duwan ku imanayo uu ahaanayo qaarkeega dambe uu ahaanayo xaalado kala duwan wayusamaa waxaa lagu magacaabaa kuwa mucraban kuwa mucraba oo isbedbedelaya mithlu tusaale ahaan kalimati assamaa'i wa fii qawlika assamaa'u saafiyatun samadu waa saafi wa fii qawlika sidoo kale waxaad odhan xajabati assuxubu assamaa'a ee daruuruhu waxay qariyeen samadii ayay awdeen mucrab maxaa la yidhaahdaa mucrab maxaa la yidhaahdaa waxaad maqashaa ama weligama isweydiisay limaada naquulu muxammadun rasuulullah marka eedaankana
وأشهد أن محمدا رسول الله. ونقرأ في تشهد اللهم صل على محمد. maxaynu kelimadda maxamed maru godnay maru kor dhignay marna u hoos dhignay. taasi waxaa la yidhaahdaa waa icraabka. assamaa'u saafiyatun hadda way godan tahay. assamaa'u saafiyatun hadda way godan tahay, meeshii la godi lahaa ayay joogtaa, waana mubtada. وفي قولك حجبت الصحب السماء حتى ويكور ديغنتهاي. حجبت الصحب السماء حتى ويكور ديغنتهاي. السبب ويكور ديغنتهاينا waxa weeyaan waa mafcuul bihi, mafcuul bihina waa la kordhigaa. يدي hoos dhigan baan markana inuu eegaynaa. في قولك نظرت إلى السماء. نظرت إلى السماء waxaan eegay samada. marka way hoos dhigan tahay maxaa yeelay waxa horgalay ilaa oo xaraf jaar ah. marka waxaynu odhan kalimatu assamaa waa kalimatu mucraba. فإن آخرها في جملة أولى متحرك بضمة. جملة كوباد waxa ku xarakaysan tahay bidammati gudniin. السماء صافية. وفي ثانية متحرك بالفتحة. طلبنا waxa ay ku xarakaysan tahay waa kordhig. فتحة dul saaran. وفي ثالثة تصدحادنا متحرك waxay ku xarakaysan tahay بالكسرة hoos dhig.